waxaan jeclahay run ahaantii inaan gobor gaaban baa la joogaa xirsi rag badan baa ka hadlay oo adeerkayga intuu yidhi dee kamaba odhan karo aar saaxiibdiid intuu yidhi ayaa xirsi ku filan laakiin waxaan u malaynayaa intaan malaha xirsi israacnay ama aanu doodnay ama aanu meelo wada marnay in yar bay dad israaceen baan u malaynaya hadday dibad tahay iyo hadday gudaha tahayba marka waxaan leeyahay waa nin runtii mas-uula oo mabda leeyahay anigu nolosha waxaa ii qiimo leh qofkii inuu mabda leeyahay qofka bini aadamkii inuu mabda leeyahay oo waxa uu aaminsan yahay isagoon reernimo ku diideyn iyo waxba ku diideyn uu fikirkiisa iyo caqligiisa ku diidayo waxaasuu kulama ma hagaagsanaa buu hagaagsan yahay wax alla waxay doontaa ha noqoto waayo mabdaw qofku waa dadka bini aadamka waa wax isku xidha marka waxaan qabaa inuu yahay nin runtii adag waxyaabahan ku aqaano waxaa ka mid ah xirsi been ugu iman maysid ha marmar indhaha uu iska kaa tuurayo hadduu doono uu ku soo gaagaabin ma fahanti ya ma fahmaysaa hadda which is okay hawlo badan baa inagu wada furay ma garanaysaa ya laakiin waxaa ugu daran nin been kuu sheegaya oo madaxa oo intaad la ballanto aanad ugu imanayn wixii aad meel dhigatay waa ka ugu liita kaas marka waxyaabahan ku aqaano aan runtii kula shaqeeyay aan ku bartay waxaa ka mid ah qowlka aad saaxiibadiina ma fahantay horyahay way kugu soo noqon haddaad maalin saaxiib ahaydeen cirsi meel unbuu kaa soo gelin hadduu wax noqdo kuwii hore ma fahantay bal imanka yar eega qolyaha la dhisay ma garanaysaa ya xabad xabad u eega ragga soo noqday rag badan baa jiro oo saaxiib ahaayeen cirsi waa qadiyad iyo yani qofku inuu leeyahay qadiimad uu leeyahay dee maxaan ku rahdaa dee lagula socon karo markaa waxaan kaga baxayaa dhammaantiin waxaan idinka mahadnaqayaa guddoomiya kaaga mahadnaqaya qadadan sharafta leh ee miisaanka leh ee qaranka jamhuuriyadda somaliland oo dhameeya ku jireen sidaa la sheegay dee guddoomiyayaashu way wada casimeen ku-xigeenadu hore taa cabdirashiid iyo baa ugu horreysay xagga xisbiga wadani oo waanu ku kaftanay weliba marka waxa weeye aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa in badan baan ka hadlay oo qodobkaan ka hadlay waxa weeye midnimada ha la ilaaliyo midnimada qaranka jamhuuriyadda somaliland dadkan waa dad walaalaa waa dad meel ku wada dhashay midnimada ha la ilaaliyo iyo wada noolaashaha